الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي في الله، waxaan idinka raaligelinayaa tafsiirkii suuratul faatixa oo dhamaystirnay. runtii aan soo geliyay ama aan soo dhigay pagekeyga. iminka insha allah waxaan rajaynayaa insha allah inaan idinla wadaago 7 aayadood maqaasida suurada iyo ulajeedada suuratul faatixa ilaahay uu soo dejiyey, iyo wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta uga baahan yahay iyo faa'iidooyinka suurada insha allah. suurada runtii waa suurad ilaahay subxaanahu watacaala maqsadka iyo ulajeedada uu soo dejiyay ay tahay qofka mu'minka inuu addoonnimada dhabta ah ilaahay subxaanahu watacaala u abuurtay uu markaa oofiyo, oo ah ilaahay keligii inuu caabudo, oo ilaahay subxaanahu watacaala keligii ilaahnimada ilaahay uu qiro, uu ilaahay keligii ilaahnimo markaa uu qaato, ama ilaahay subxaanahu watacaala keligii ilaahnimadiisa uu u gooni yeelo. suuradani waxay suuratul faatixa waxa loogu bixiya waxay tahay waxaa lagu furtay kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala. magac kalena way leedahay. magacyada ay leedahay waxaa kamid ah sabca almathani micnaheeda waxa weeye waa suuradani 2 mar bay soo degtay. marna makay kusoo degtaa la yirahdaa, marna madiinay kusoo degtay. mar qur-aanka qayb kamid ama suuradana qayb kamid makay kusoo degtaa la yirahdaa, qayb kamid madiinay kusoo degtay. wallahu aclam. haddaan suuradani runtii micnaheeda kooban aan idinla wadaago waxay noqonaysaa sida tan: bismi illaahi, magaca ilaahay ayaan qur-aanka akhridiisa ku bilaabaya anoo kaalmaysanaya ilaahay subxaanahu watacaala, isla markaana barakaysanaya magaciisa. arraxmaani, allah naxariista guud naxariista. arraxiimi, allah naxariista gaar ahaan markaa naxariista. alxamdu mahad oo dhan lilaahi eebaweyne iska leh, rabbilcaalamiin, rabbiga caalamkan abuurtay ayay mahadoo dhan markaa u sugnaatay wey. arraxmaani arraxiimi, allah naxariista guud iyo midda gaarba naxariista. maaliki yowmiddiin, midka hantiyey maalinta aakhiro. iyaaka adunbaa keligaa rabbiyow nacbudu ku caabudaynaa, iyaaka adunbaa keligaa nastaciinu eeba ku kaalmo weydiisanaynaa. ihdinaa ilaahayu nagu haday siraatan mustaqiima, jidka toosan, waana islaamka, waa jidka aan qalqalooca lahayn. jidkaasi ilaahay markaad weydiisato waxaad sidoo kale ilaahay weydiisanaysaa inuu kugu sugo, isla markaana ilaahay subxaanahu watacaala uu markaa ku tuso xaqa, isla markaana uu kugu sugo, isla markaana ilaahay uu ku ziyaadiyo. siraata, jidka aladiina kuwii ancamta calayhim aad hanuunka ugu barwaaqaysa, oo ah ambiyadaas, diiqiintii iyo shuhadadii iyo saalixiintii dadkiisu subana, hayri aan ahayn. jidkanna ilaahay waan kaa magan galaynaa wey. hayri jidkan ilaahay kuma weydiisanayno. almaqduubi calayhim, kuwii loo carooday jidkooda, waladaalliina, iyo kuwii markaa baadiyoway. almaqduubi calayhim waxa weye waa yahuuda intay xaqii garteen bay raaci waayeen, saa darteeda ilaahay subxaanahu watacaala waa u carooday. waladaalliina waxa weye waa nasaaradiiyo ayagoon cilmi iyo aqoon lahayn bay haddana xaqa ilaahay ku xadgudbeen, saa darteeda ilaahay subxaanahu watacaala kuwa ugu baadiyeeyey. annagana labada camal ilaahay uu nooga digaya inaan aqoon yeelan weyno, isla markaana aan raadintii aan raadinayna ku xadgudubno. waa dhaqan nasaarada leedahay. ilaahayna uu nooga digay inaan cilmigii markaa yeelano, isla markaana aan ku camal fali weynana waa wuxuu ilaahay ugu carooday yahuuda. ilaahay subxaanahu watacaala uu nooga digaya. suuradani fawaaid bay leedahay. fawaa'ideeda waxaa kamid ah wuxuu ilaahay ku bilaabay magaciisa. sidoo kale magaca ilaahay waxaa loo baahanya mu'miniinta oo dhanna inay magaca ilaahay wax walba, shaqo kastay qabanaya inay magaca ilaahay ku bilaabaan. hadal walbay ku hadlayaan iyo wax walbay samaynaya inay magaca ilaahay sidoo kale ay ku furtaan. sidoo kale suuradani waxay noo tilmaamaysaa addoomadii wan wanaagsanaa ee suubanaa iyo sida ay ilaahay u baryi jireen, oo waxayna ahayd ilaahay subxaanahu watacaala ay ammaani jireen, ilaahay bay weyneyn jireen, kadibna ilaahay waxay doonaan bay weydiisan jireen. haddaba ilaahay subxaanahu watacaala suuradani wuxuu sidoo kale noogu sheegay sidaan iimaan dhamaystiran ku heli karno, oona ay tahay
waxayna tahay markaa sida iimaanka dhabta lagu heli karo waa in uu qofka mu'minka ilaahay addoonnimada ilaahay subxaanahu watacaala addoon dhab ah uu noqda isla markaana ilaahay keligii uu caabudaa si daacad leh waa inuu ilaahay keligii uu caabudaa suuradani fawaa'idaasay ka hadlaysay baaraka allahu fiikum ka faa'iidaysta insha allah sii sharkaraya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu